tobabarkani oo muddo 9 cisho ah ka socon doona magaalada Boorama ayaa waxa soo qaban qaabiyay macadka tobabarada shaqaalaha dawladda Soomaaliland kaasoo ay ka faa'iideysan doonaan agaasimo waaxidyada arrimaha bulshada dawladaha hoose ee dalka oo dhan. Tobabarkani ayaa inta uu socdo waxa lagu gorfayn doonaa maamul daadajinta dawladaha hoose iyo sidii kor loogu qaadi lahaa isla markaana bulshada halkooga lagu gaarsiin lahaa adeegyada arrimaha bulshada. waxaana ka soo qayb galay munaasabada furitaanka tobabarkani oo ka dhacay Hotel Sowe magaalada Boorama. gudoomiyaha degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi mas'uuliyiin ka socday hay'adda UNICEF iyo mas'uuliyiin ka tirsan macadka tobabarka shaqaalaha dawladda waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay Siciid Aadan Caabi oo kamid ahaa macadka tobabarka shaqaalaha dawladda Soomaaliland isagoona tilmaamay ujeedada kulankani ayaa waxa uu sheegay ujeedooyinka laga leeyahay decentralized service delivery waxaan weeyaan objectives ka laga danleeyay in la maamul daadajiyo wixii social services ka dawladda hoose district level haday noqoto waxbarashadii caafimaadkii iyo insha Allah mustaqbalkan rajeynayno in water canal la decentralize gareeyo in central government ka gacanta ay ku hayso ujeedooyinka Muslim dano waxa weeye in department of social service department in at least ay responsibility ay qaadaan qaabkii ay u shaqeyn lahayd dawladdu district education ka iyo haday noqoto wixii district health and facility ga dawladda hoose ay qabanayso degmooyinku. So I'm happy that we have finally come to a stage where we are going to roll out this capacity building training for you as you are key actors in helping take forward the decentralization agenda of the government of Somaliland. UNICEF is accompanying this process through the service delivery model at the district level, and we will continue to support the process. ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina soo dhaweeyay tobabarkani gudoomiyaha degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi oo ku hadlayay afka gudoomiyayaasha degmooyinka dalka waxana uu yiri maanta aanu chance baan u arkaa hawshan in muddada aad joogtaan idinkoo ka turjumaya golayaashii deegaanka la soo doortay meeyaradii shaqaalihii oo dhan institutionkii idinkoo xambaarsan ayaa halkan waxaad kala noqon doontaan waxaad halka ka faa'iideen oo la doonayo inuu degmadii kor u qaado marka adiga capacity-gaaga iyo aqoontaada iyo fahamkaaga wax badan isla fahamtaan wax badan ku iftiimaan waxa imanaya institutionkii aad ka timi inuu noqdo mid aw ka muuqdo wixii aad soo fahamtay. waa Cabsalaan Saaha telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Boorama.